Midowgii Sofiyeedka ee baaxadda intaa le'eg ku fadhiyay muxuu uga duuli waayay dowladda Finland iyo dowladdan kale Mongolia? Han ku waramo. Han ku horeyna Finland. Finland waxay ka mid ahayd dhulalkii ay ka talin jirtay boqortooyadii Ruushka. Boqortooyadii Ruushka marka ay burburtay kadib dowladihii ka hoos baxay ayay ka mid ahayd. Kadib markii uu samaysmay Midowgii Sofiyeed wuxuu raadiyay inuu dib u qabsado dowladihii amba dhulalkii ay ka talin jirtay boqortooyadii Ruushka. Qaar uu la heshiiyey, qaarna dib ayay u qabsadeen. Haddaba Midowgii Sofiyeed marka uu go'aansaday inuu dib u soo ceshado dowladda Finland, wuxuu iskala heshiiyey dowladdii kale ee Jarmalka oo rabtay inay dhinaca bariga Yurub u soo durugto. Markii uu la heshiiyey Jarmalka ee uu dhexmaray heshiiskii Molotov, Jarmalka iyo Midowgii Sofiyeedka waxay kala qaybsadeen Poland. Waxay kale ku heshiiyeen inuu Midowgii Sofiyeedka qabsado saddexdan dowladeed ee Baltiga iyo dowladda Finland. Haddaba Midowgii Sofiyeedka wuxuu bilaabay inuu qabsado amba uu weeraro dowladdii Finland. Haddaba maxaa dhacay markuu Midowgii Sofiyeedka uu weeraray Finland? Dagaalka Finland iyo Midowgii Sofiyeedka dhexmaray waxaa loogu magac daray dagaalkii jiilaalka sanadii 1939 ilaa sanadii 1940. Sidaas soo maqashaba dagaalku wuxuu bilaabmay xilli jiilaala, yacni xilli uu barafku aad u da'ayay. Dowladda Finland maadaama ay ahayn dowlad aad u xoog weyn oo u barbardhigi karto Midowgii Sofiyeed, waxay samaysay amba ay isticmaashay dagaalka lagu magacaabo dagaalka gorillaha, ku dhifo ka dhaqaaq. Sababtoo ah cimilada ayaa saacidaysay. Dhulku xilliga aad buu u baraf badnaa. Dhulka Finland waa dhul aad u kaymo badan oo webiyo fara badan leh. Inkastoo Midowgii Sofiyeed ku soo durkay in yar, haddana waa iska riixaysay. Si kastay ahaataba Midowgii Sofiyeedka quwaddiisa oo dhan halkaas kuma wada geyn, sababtoo ah problem ayaa ka haystay dhinacan kale bari. Dowladdii Japan ee weyneyd ee qabsatay Shiinaha, Manchuria iyo qaybo fara badan oo Aasiya ah, iyo problemyo kaloo gudaha ka haystay. Saasi darteeda sanadii 1940 Midowgii Sofiyeed wuxuu iskala heshiiyey dowladdii Finland. Dowladdii Finland oo noqotay dowlad dhexdhexaada, lana jirin Naazigii Jarmalka, lana jirinna Midowgii Sofiyeedka. Xitaa markii uu bilaabmay dagaalkii qaboobay ee u dhexeeyay Mareykanka iyo kooxdiisa iyo Midowgii Sofiyeedka iyo kooxdiisa, dowladda Finland cidna lama aysan jirin. Dowlad dhexdhexaad ayay ahayd. Haddaa ku dhaha ka waran, dowladda Finland waxay NATO ku biirtay sanadii 2023. Haddaba ha u gudubno dhinacaya Mongolia. Midowgii Sofiyeed muxuu uga duuli waayay dowladda Mongolia? Dowladda Mongolia sida u dhan tahayba waxay ka mid ahayd boqortooyadii Shiinaha. Boqortooyadii Shiinaha marka ay burburtay sanadii 1917, Mongolia waxay noqotay dowlad iskeed u taagan. Kadib markii uu samaysmay Midowgii Sofiyeedna, dalkan Mongolia waxaa ka dhalatay xukuumad shuyuuciya oo taabaxsan Midowgii Sofiyeed oo marar fara badan isku dayday inay ku biirto Midowgii Sofiyeed, laakiin Midowgii Sofiyeed markasta waa uu diidayay. Sababtu wax kale ma ahayn, dowladdii ka jirtay Mongolia ma ahayn dowlad yacni ideology ahaan amba si kaleba ka soo horjeedo Midowgii Sofiyeed. Dowladdu waxay ahayd saaxiib la ah. Bale saa kuu sheegaba dowladdii Mongolia eedaaba dalbanaysa inay ku biirto Midowgii Sofiyeed. Ta kale labada Midowgii Sofiyeed u diiday inay Mongolia u qabsato waxaa weeye dowladdii Shiinaha ayay diidaneyd inay isku dirto amba ay isku dhacaan. Dowladda Shiinahana saa ogtihiin maaha dhul yar, waa dhul aad u weyn oo aad u ballaaran. Dadkuna aad ayay u badan yihiin, waa 100 milyan. Marka 100 milyan iskuma diri karo isagoo dhinaca kale galbeed, reer galbeed la dagaalamaya. Haddaba Midowgii Sofiyeed wuxuu sameeyey maadaama ay ahayd Japan cadowgeyga ugu weyn ee dhinaca bari ka soo weerarayay, Shiinahana qabsaday. Wuxuu hubiyo dhaqaalaba siiyey dowladdii xilligaa ka talinaysa Shiinaha oo ahayd nationalisti oosan ahayn communist shiyuuci. Sida ay tahay haddana wuxuu ka saaciday inuu Japan ka saarto Shiinaha. Kadib Midowgii Sofiyeed intaa kumuusan joogsanin. Si dowladda nationalistiga aanay ula jirin amba ay dhinaca reer galbeedka ugu jeerin, maadaama ay reer galbeedkuba Japan u weerarayeen, wuxuu sameeyey dowladdii dhanneyd ee Shiinaha ayuu gacanta u geliyey kooxihii communistiga ahaa ee uu hogaaminayay Mao Zedong. Saasi darteeda Midowgii Sofiyeed wuxuu gacanta ku dhigay Shiinaha iyo Mongolia, yacni gacanta ku dhigay kama wada uu qabsaday, laakiin siyaasi ahaan iskaga ayay la jiraan. Waayo adduunku xilliga dagaalkii labaad ee adduunka kadib wuxuu u kala baxay ima inaad la jirto kapitalistiga reer galbeedka ama inaad la jirto communistiga
bariga ee Sofiyeedka. Saasi darteeda Midowgii Sofiyeed, dowladda Mongolia iyo Finland mid iskaga ayayba la jirtay, midna dhexdhexaad ayay dooratay.